xaaladda magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan ayaa weli jahwareersan kadib qaraxii weynaa ee xalay gelgelay magaalada caasimadda ah. 10 kiiloomitir oo isku wareeg ah ayuu burburiyay qaraxaas oo lagu tilmaamay midkii ugu xoogganaa qarnigan. Meydadka ayaa weli laga soo saarayaa goobaha burburay. qaraxu waxa uu ka dhacay aagga dekedda ee magaalada Beirut. Dowladdu waxay xaqiijisay dhimashada 100 ruux iyo dhaawaca in ka badan 4,000 qof. madaxweynaha Lubnaan Mijal An ayaa ku dhawaaqay 2 asbuuc oo xaalad degdeg ah la geliyay waddanka. waxay kaloo golaha wasiirada ku baaqeen 3 maalmood oo baroordi qaran ah. sidoo kale madaxweynaha ayaa amray in la bixiyo lacag dhan 100 bilyan oo liira ah oo u dhiganta 66 milyan oo lacagta doolarka ah si loola tacaalo dhibaatada. George Kitne, madaxa lanqeyrta cas ee Lubnaan, wuxuu sheegay in saacad walba meydad horle laga soo saarayo dhismayaasha. wuxuu ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka reer Lubnaan. dowladaha Qatar, Ciraaq iyo Kuwait ayaa durba ku dhawaaqay inay gurmad degdeg ah u direen Beirut. Ra'iisul wasaaraha Australia, Scott Morrison, wuxuu sheegay in hal muwaadin oo dalkiisa u dhashay ay xaqiijiyeen inuu ku dhintay qaraxaas. waxaa kaloo burburtay xaruntii safaaradooda ee magaalada Beirut, wuxuuna ku baaqay in gacan wadajir la siiyo Lubnaan. dalalka kale ee khasaaruhu ka soo gaaray qaraxii xalay ka dhacay Beirut waxaa ka mid ah Japan, South Korea iyo Philippines oo muwaadiniin ay uga dhinteen qaraxaas. madaxda wadamada India, Malaysia iyo Britain ayaa dhammaan ku dhawaaqay gurmad aan loo kala harin. khubaradu waxay qaraxan la mid dhigeen dhulgariir cabirkiisu yahay 3.5. qaraxan awoodiisa waxaad ka fahmi kartaa in laga maqlay Qobrus oo 100 maylis ama 160 kiiloomitir ka fog Lubnaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Qobrus, Nikos Christadlis, wuxuu sheegay inay aamineen inuusan qofna ku badbaadin gudaha magaalada Beirut. wuxuu kaloo sheegay inay dhaqaatiir iyo agab caafimaad u diri doonaan Beirut. qaraxan ayaan ilaa hadda la cadeynin waxa rasmiga ah ee sababay, balse dowladda Lubnaan waxay sheegtay inay sababeen kiimika ku kaydsaneed baqaar ku yaala dekedda oo tankeeda lagu sheegay 2,750 tan. waxaa jira tuhun la xiriira inay dowladda Israa'iil si uun ugu lug leedahay dhacdadan, laakiin xukuumadda Israa'iil ayaa si degdeg ah u beenisay inay wax luga ku leedahay musiibada ka dhacday magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan. ilaa 3 ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn magaalada Beirut ayaa ku burburay qaraxa. Nasir Yassin, oo ah professor ka tirsan jaamacadda American University of Beirut, ayaa u sheegay Al Jazeera in aanay arrintan maareyn karin dowladda Lubnaan, loona baahan yahay kaalmo caalami ah oo weliba degdeg ah. dowladda Lubnaan waxay ku baaqday inay dadkeedu isu gurmadaan oo gobollada laga soo baxo. madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay musiibadan wuxuu sheegay inay saaxiibo dhow la yihiin dadka reer Lubnaan ayna degdeg u caawin doonaan. wuxuu kaloo sheegay in qaraxaasi uusan u muuqan kiimiko warshadeed, balse jananadiisa qaar oo la kulmay wuxuu sheegay inay ula muuqatay inuu yahay nooc weerar ah oo lagu qaaday Beirut. musiibadan waxay dhacday xilli waddanka Lubnaan ay maalmihii la soo dhaafay ka socdeen banaanbaxyo la xiriira hoos u dhaca dhaqaalaha oo gaaray meeshii ugu xumayd tan iyo xilligii ay dalkaasi ka socdeen dagaalada sokeeye intii u dhaxaysay 1975 ilaa 1990. xaaladda ayaa weli u muuqata mid murugo leh. meydad cusub ayaana la helay saacadihii u dambeeyey xilli isbitaalada qaar ay waayeen meelo ay dhaawacyada jiifiyaan. dalalka Islaamka ayaa saacadihii la soo dhaafa bilaabay inay u duceeyaan dadka reer Lubnaan.